Assalaamu calaykum. Saaxiibada ku xiran janalka Munir Marsi waa saaxiibkiin Munir. Waxaan bilaabi doonaa oo aad halkan kala socon doontaan insha Allah si musalsal ah ama tixano ah mowduuc cusub xulashada guurka. Mowduucan ayaa noqon doona mid aan uga hadli doono xulashada guurka iyo sida aad u xulan lahayd qofkaaga ama qoftaada mustaqbalka. Waxaan ka soo diyaariyay buugga xulashada guurka oo uu qoray gudoomiyaha Guriyasamo qoraa sare Abshir Axmed Geedi. Hamiga ugu weyn ee uu qofka dhalinyarada ah rag iyo haween ku ahaadaba noloshiisa gudaheeda waa go'aanka gaaridda mustaqbalka guurkiisa iyo qofka ay wadaagi doonaan nolosha. Qaabka uu u xulan lahaa si uu ugu guuleysto maxaa yeelay aayaha noloshiisa waxa ay ku xiran tahay go'aanka uu qaato ama ka gaaro arrinta guurkiisa iyo qofka ay nolosha qaybsan doonaan. Sababtu waa go'aankaas uu qaatay ayay ka dhalanaysaa ku noolaanshaha nolol farxad iyo rayn leh ama nolol murugo iyo aayo xumo leh. Sidaa daraaddeed waa in aad loogu fikiro qofka aad wada noolaan doontaan mustaqbalka. Xulashadana fikir badan oo dhinacyo kala duwan isugu jira wax laga eego, sidoo kalena la sameeyo tashiyo badan oo lala yeelanayo dadka waayo jooga ah ee arrimaha guurka ehelka u ah oo daacadnimada iyo khayrka miirka lagu tuhmaayo. Qofkuna waa inuu Allah subxaanahu wa tacaala khayr weydiistaa oo marar badan tukada salaada istiqaarada loogu talagalay inta aanu go'aan qaadan. Qofka guurdoonka ah waa inuu aad isaga ilaaliyaa waxyaabaha soo dadejin kara inuu ka habaabo ama ka lumo jidkii uu ku heli lahaa qof wanaagsan oo ku habboon baahidiisa iyo mustaqbalkiisa fog, sida daawashada filimada ka hadlaya jacaylka, hadallada aadka u qabow ee dareenka abuur, saaxiibtinimada beenta ah ee lagu soo bandhigo baraha bulshada. Waxyaabahaas oo ku dhisan khiyaano iyo hungurigelin been ku salaysan oo ay dhalinyaradu ku daydaan ama jilaan iyagoo adeegsada ficilada iyo erayada xardhan ee aan salka lahayn ee lagu soo bandhigo meelahan aan horay u soo sheegnay ee aadka u khataraha badan. Waa inuu ogaadaa qofka guurka doonayo in reer waara oo wada noolaansho farxad leh ku taagan la abuuro, inaan lagu abuuri karin arrintaas qiimaha leh qurux la raaco ama qowl la wanaajiyay. Maxaa yeelay noloshu kuma soconayso dareen iyo damac aan sii qodnayn ee caadifadii abuurtay ama dhalasho iyo qurux lagu dayoobo, waayo guurku waa nolol wanaagsan. Qur-aanka Kariimka waxaa ka baranaysaa inaan Allah subxaanahu wa tacaala weydiisano wanaag adduun iyo mid aakhiro intaba, waayo isaga ahaaya rabbigeen wanaagga labadiisaba. Waxa uuna qur-aanku yidhi dadka waxaa ka mid ah kuwa odhanaya rabbiyowna sii adduun wanaag aakhirana wanaag, nagana badbaadi ciqaabka iyo cadaabta. Waxaana sidaa dhaha dadka wanaagsan. Haddaba waxaa la sheegay in saxaabiga Cali ibnu Abi Taalib radiyallahu canhu uu ku fasiray oraahdan khayrka adduunyada inuu yahay xaaska wanaagsan, kan aakhirana haweenka jannada xurul caynta, cadaabka iyo ciqaabkana naagta xumaanta oo aanan fiicnayn. Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi adduunku waa raaxo kooban, waxaana ugu wanaagsan adduunka raaxadeeda xaas wanaagsan. Ahmiyadda xaaska wanaagsan waa taa. Doorashada iyo xulashada xaas wanaagsan waxaa laga helayaa macaanka iyo farxadda dunida, halka xulashada oo aan hanaan wanaagsan loo marin guurku uu isku bedelo cadaab, niyad xumo, niyad jab, daal iyo burbur baahsan oo khatar keena, kaas oo sababa dhibaato badan. Waa inaad ogaataa qoyska wanaagsanaada noloshoodu waxa ay noqonaysaa mid socota oo aan ku dhammaan adduunyada. Farxaddooda iyo rajayntooda waxa ay ahaanaysaa mid aan harin oo sii balaarata. Sidaa awgeed waxaa loo baahan yahay in guurka aad looga fikiro ee aan ku abuurmin caadifad iyo waa ka helay iyo kuu bogay, taas oo ku dambayn karta shalaay, dayac iyo dumid ku yimaada qoysaska la dhisaayo. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi aad u eega halka aad awlaadda ka raadinaysaan. Guursada dad idin qalma, gabdhihiinana u guuriya dad u qalma ukuf ah. Cuthmaan abil Cabaas waxa uu ku oran jiray wiilashiisa marka uu guurka kala hadlayay, qofka guursanaya wax buu abuurayaa, waa qof beertiisa geedmirood ku talaalaya oo kale. Iska fiiriya halka aad wax ku beeranaysaan, waayo xididka xumi waxa ay u badan tahay inuu dhalo isagoo kale. Halkaas waxaa inooga eg qaybtii koowaad ama hordhaca mowduuceeni xulashada guurka. Intaan qaybteeda kale ka kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullah.
صلوا